mudane Axmed Ciise Cawad wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Soomaaliya iyo danjiraha dawladda Qatar ee Soomaaliya u fadhiya ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay dib u dhiska iyo dayactir lagu sameeyo macadkii arrimaha diblomaasiyadda ee wasaaraddu ay lahaan jirtay kaasi oo kamid ah hay'adihii dawliga muddada ka badnayd 25 sano burbursana wasiirka ayaan uga mahadceliyay dawladda Qatar sida ay uga gacansiinayso dib u dhiska dalka aan walaalaha nahay ee Qatar naga kaalmeeyay in aynu maxadkeennii dib u hagaajino oo dib u samayno waxaa salaan mahadnaq gaara mudan safiirka Qatar oo isagu dadaal dheeraad ah ka geystay sidii ay arrintaasi u suurtageli lahayd سفيرك قدر الصومالي حسن بن حمزة أيا إسنا دنكيسا كهالي دقح دقا وتعهد دولة قطر بتقديم حزمة من المشاريع التنموية للصومال. نعلن اليوم إن شاء الله عن تدشين أول مشروع من حزمة المشاريع ممولة من دولة قطر. جرها قدر وحو شيغي أي كاقو أنتاي دولة قدر قرب استاقى الشعب كالصومالية ديسلام رهان تانا أي كتاقران هورمارينتا مشاريع ذا إدالك كوضان. dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa uu qaabilay danjiraha Yemen ee Soomaaliya Fadli Cali Axmed wuxuuna kala hadlay xoojinta xiriirka labada dal sida uu sharaxayo wasiir Cawad sida ay Yemen u tahay saaxiib Soomaaliya oo dadka Soomaaliyeed iyo dadka Yemen ay ka dhaxayso taariikh fog oo saaxiibnimo iyo walaalnimo marka xiriirka iyagu waa joogto waa is aragnaa kulankii ugu horeeyay maaha maanta wuxuu noogu yimid inuu noo cabiro maaragtay oo nooga mahadnaqo mowqifka Soomaalida ku aadan taageerada dawladda sharciga ah ee Yemen. Ali Abdulqaadir Ali telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.